xanteena kuwii jeclaa u sheeg xaaskaygiyey xafladda meherkeena iyo qabar sugaani waxaa hambaliyo war mid ka dooreeran madax shan kaaga dhufan naceebayday mid un dooro waxaa la yidhi og badaragsan gabadhi markaas sidaa dhalaaqada kaaga afkaa uga maqashay badax bay u leexatay ninaa dhayaa soo qabsatay adugu maxaa ku didi waa adiga naaga in ureeye nacda ka dhacye war ma war ceeb uu yiri waxa aniga waa laga tago waa laga sameeyay been bay ahayd day been ahayd ma garba weydi wadeer tol dhiig labo ka dhashay shan abad bilo min kontan saaran tahay oo gabdhaha lagu hoosdaadiyay سالي مت كلا بح نعلى شدنا كلا بح مت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأصحابتي دقالقة أنا وحنا هذا كينغ سولفر وحد يقدر ونسع كينغ سولفر ميديا هورياه وأنت أنا مقالك بل أنا أوجد قلين لايكتا سبسكرايبكا كومنتيكا هذا كان حساسي مد كلا وحلا يري مدده مركي أفيسن تحي ورقيس ورق هذا توري مدته تقاينا سومالي وأصيع قني warwarqayso wixii ay sida u taawato waa kala goyn ya waa kala goynaysaa hadda warkuna markuu kulul yahay ee markuu hadda soo duugoobo oo maalmo iyo isbuuci yaalo ee bulooyin kala qurux badan kala dhageysi fadad dhageysiga marka kane waa war aad u kulul ya aad buu u kulul yahay iska jir naanurta haddaba انت انا وركاني حساسده انا عاديga ahayn aan u guda galin dad badan oo idin kamid ah waxa soo weydiisan war xaqeen kala soo xiriirna waa adigu qof naaca tahay waa adigu YouTube kaliya taqaana miyaad wax kala lahayn muuqaalkani comment ugu horeeya baan soo dhigi doonaa binna waa saari doonaa asaa u soo kormari doonaa waxaad sameeysan linkiga YouTube aan dhahay page Facebook-gayga oo hadda oo dartina u sameeyay baa meesha ku yaala bal team King Solver aan arko farihiina say u fududiin ha lagu soo yaaco linkigaas click hala siiyo hore ha loo galo like hala soo saaro from YouTube kaliya ama message igu soo qor ama qaybta postiga ii soo dhig waxaan ka socdaa YouTube kaliya ii soo qor qof walba halkaas aan ku arkana biidnillaahi kariim waxaan sameyn doonaa waxaan soo qaadan doonaa magaciisa si aan ugu xuso muuqaalka xiga hadii uu shout out u baahan yahayna ha isoo dhaq qofka isaga waxaan u baahnahay shout out wayaan warkiin ku badin intaasi waxay ahayd hordhaca muuqaalkeena hadii aad like saarin hadda ayaa laga baahan yahay hadii aad subscribe saarina sidoo kale comment-gana muhiim hadda marka dhacaan adu marka dhacaan markaas malidin sheega saaxiib markaas malidin sheega waaya warkii hore warba soo dhaafay Soomaali waxay tiraahdaa taqaanaa waxay tiraahdaa cos maya meel uu maroodi ku dagaalamay cos ayaa ku dhib qaba coska ayaa ku dhib qaba hadda maroodiyaasha dagaalamay aan warkoodina hayaa qamar suugaani iyo ugbad aragsan adar horta ma waxa lagu farxaa furiin mise guur adeer guur mise furiinka xagga igda guurkaan jeclahay hadda furiin idinma wade adeer guur baa idin wada inta aan u guda galin guurka aan idin wado waxaan idin sheegayaa commentiyo badan aan arkayo lagu soo qoray beenlow beenaala tahay kana tahay baan rabaa maanta inaan ugu jawaabo war haddaan beenlow ahaa warka kani maxaa soo bixiyay warka hadda idin soo wado maxaa soo bixiyay hay waxa hore idinku sheegay in Ugbaad Aragsan iyo Qamar Suugaani in adeero dhabarka isa saareen daba sida iyo midig iyo bidix maxaa sababay been baad u qaadateen bar ama qayb idinka mid ah team King Solver kama hadlay kuwaasi King Solver wuxuu u sheego way qaadanayaan because waxaan nahay one team laakiin inta nacabka ah waxaad sheegtay waxay ku leeyihiin war waa kii wallahi war
carabka samirka galaalay ku dhig waxaan ku sheegayaa hore waxaan kugu sheegay in qamar sugaani iyo ay kala tageen muddo 3 bil 4 bil ka hor iyo ubad aragsan inay kala tageen waxaan hore idinkugu sheegay ubad aragsan inay u leexatay dhanka iyo ninka la yiraahdo ninkii musicianka ahaa Elias Idris Rajbuti sidoo kale qamar sugaanina adeer meelahaas oo walwaalanayo war hadda war maxaa dhacay war maxaa si ah war qamartiya war qamar ba ahay war qamar ma dhalma magaalada gashay war miyaa ma dhalo noqday war raagto walaga kaxist war balaayaa dhacday war tanaa kala ninkii sidaa wuxuu ugu meereystay Hargeysa dhan ya hadda Hargeysa miyaa tir loo gaaraa tir male 9.5 milyan baa ku nool kabtada kuma gasho isku kama Hargeysa war Hargeysa inta la eg booninka ku dhax waashay tan iyo markii laga qafaashay laga maroojiyay laga majaxaabiyay naagtii weyneed ee baada aragsan hadaba ilma adeeryaalow ninkii soo tabcaansanaa oo meelaha isaga yaalay boo inta boor jaf sida yiri waasheenay nisheenay wama xuma ninku waasheenay hadaba inan wuxuu la soo baxay tii laga bixin jiray 100 halaad iyo baarqabkood iyo qoriga iyo qasnada 30 mir ay ku jirto hada gabar ma taasi gabar ma waa gashaante ya waliba ila hoos xog hoosta waxa ku maqlaayay in gabar familiga lafta hoose uu ka dhashay inay ya usasadaha oo soo xaawiyay wariya baa la yiri war madaxda la'aana dadka ka dhalatay me ya dadka aad ka dhalatay baa la yiri maxaad ugu meeraysanaysaa ilmaha yarka oo Djibouti qabow ku dilay qoraxda wariya yaana dambaawin Djibouti waxa la yiri qoraxda ka da'ayso ya meesha magaalooyinka rab ka da'o qoraxda ka da'da Djibouti waxa leenahay Allah qaboojiyo wadankeena weeye intaas ma kaftan marka ninkii qamar sugaani intaas kaftan iga hade ninkii qamar sugaani waa uu aroosay gabar hadda wuxuu aroosay aanan kabteeda la gashan karin hadde galaan dheera hadduu Ilaahay ku roon yahay qoor inta qaanadii qalanjo dhoon dheer lihadle ya haddu magaceeduna de waa weeraan dabaale ya weeraan dabaal weeyo magaceedu waa naaglaan dheer waxa yiraahdaa Nasiim Cabdullaahi Diiriye de waa gabar aan social media lagu aqoonin hatta waagi Snapchat waagi nin baaska la isticmaali jiray ma san ahan gabar nin baaska isticmaasha Facebook baasan lahayn Instagram baasan lahayn Messenger baasan lahayn WhatsApp baasan lahayn hatta telefoonka lagu hadla baasan wadin dhawrsan soo xakartay ma hadda gabadhaasna la meel dad talka u soo aruuriyay waxaad waliba xogtaan ku hayaa waxa loo keenay hal cabdi bilo oo gabdha hal cabdi bilo ba lagu hoosdaadiyay war mid ka door Allah kugu taale waad nacabeysay ka door la yiri talka wada caabeeday content inta loo keenay content gabdhood kala daran inta loo keenay la yiri war mid ka dooreeran madax shan ka dhufan caabeeday mid un dooro waxa la yiri ubad aragsan gabadhi marka sida dhalaaqada kaaga afka uga maqashay bidix bay u leexatay nina dhayaa soo qabsatay adigu maxaa ku diiday waa adiga naaga uurayay nacay ka dhacay war ma war xeebo yiri waxa aniga waa laga tago waa laga sameeyay been bay ahayd day been ahayd ma garba weydi wadeer tol dhiig labo ka dhashay shan cabdi bilo min kontan saaran tahay oo gabdhaha lagu hoosdaadiyay saalayro mid kala bax nacla shadhan kala bax mid kala baxay iminka hotel gorgor mu aha ma aqaan ya hotel duka iyo hotel Daniel wuxuu ama aqaan hotel Landera electric caadi ahayn qaali buu meherkiisu ka dhacay isaga ee gabadhaasna caadiga ahayn barqabka Hargeysa dhaxdeeda bartaasa waxa lagu soo shaaciyay maanta oo dhan waxaan idin sheegaya hadda waa saacad ka hor soo garteen ma waa war aad u kulul sheer gareeya asxaabtu lawdaaga warkan waa aad buu u kulul yahay waxa garteen hadda kan xan ma aha xanti aad barteen ma aha kan waxaan ma aha ya kan waa reality
dee King Sulfarna xogta rasmiga ah xaajinta iyo xarabta aan lahayn ee xaada ah bad uga barateen waxaan leeyahay hadee arooskana waa soo taban doon arooska war life baa soo taban ma aroos wax kale arooska qamar wax kale adeer life baa soo tabanayna hadda waxaan malayn doona ogbaadna ina iyaduna meeriso hadda waxa la yiri saaxiibtinimada jaceelku way kala hormartay inta bay dhab siisay de meherkaysan kala hormarin dhab markuu siiba hore lagu sii meheriyay waxa gartan ma gabadha laan dheeraha la yiraahdo Nasiim Cabdullaahi Diiri ugu dambeyn waxa leenahay qamar sugaani hambalyo guur wacan noqda kuwii isku waara oo khayr qaba kala hela waxaan halkaan tahniyad meher ugu dirayaa waliba aan ugu diraynaa aniga iyo bahda King Sulfur Media boqorka iyo boqorada faraska iyo geenyada wiilka iyo gabadha boqorka iyo boqorada Queen and King oo meherkooda ka dhacay wadanka Soomaaliland qaashatan magaalada barakeysan ee Hargeysa ee 2 bilyan ay ku nooshahay hadda waxa leenahay guurkiina Allah meherkiina Allah ka dhiga meher sababa in la gaaro ilaa inta laga gaarayo in sababa in la gaaro maalinta arooska lagu gaaro maalinta arooska marka la gaarana sababa mid la kala helo ubad marka la kala helo sababa mid la isku waaro bidnillaahi kariim intaas ayaan bal idin la soo dul istaagay si shargare walaalkay qaaliga ah comment iyo like-na hadda faraha joojinin adigu indhaha ka daawo farahana ka shaqay waxaan laba kala yihiin indho ka daawo farahan ka howlgal laba shaqay kala yihiin waa indho iyo maskax iyo gacam saddex way hadda anigu waxaan ahay King Sulfur waan ku faraxsanahay in aniga ay daawato waxaad iga daawanaysaa King Sulfur Media waa kamaradii Naju halkan waa King Sulfur Media salaamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.